daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo ayaa kulan wuxuu la qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka kaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka qarax lagu dilay sarkaal ka tirsan dawladda ayaa wuxuu ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka Soomaaliya ee dalka Jaynaha madaxweyne Farmaajo ayaa waxa kulan ka dalbaday midowga musharaxiinta dalka xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dawladda ayaa waxa ay gaareen deegaanka shir kale ee magaalada Muqdisho halkaasi uu degan yahay taliyihii hore ee gobolka Banaadir Saadiq Joon taliska booliska gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in gacanta ay ku soo dhigeen dad la xiriirinayay inay ka dambeeyeen dilkii gudoomiyihii degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 guud ahaan warka TV-ga Hilaac wanaaganta